ma isweydiisay raashinka WFP xaguu ka yimaada sidoo maabkoodan tusayo hal kama iibsadaan beeralayda Soomaali waa 1 kiilo oo raashin ah wadamada uu ka yimaado waxa ugu badan kuwa horumaray sida Mareykanka iyo Yurub Mareykanku raashinka uu dhiibo waxa loo yaqaanaa surplus waa hambada ama haraaga ay bulshadooda u quuri waayaan waa raashin muddo badan yaalay oo badan tahay inuuna ku haboonayn xoolo in la siiyo iska dhaaf bini aadame sida kuwan dhowr bilood ka hor lagu qabtay Muqdisho waxa lagu qabtay garoonka diyaaradaha raashin dhacay oo ay leedahay hay'adda la yiraahdo WFP xaqiiq ahaan Mareykanku isaga faa'iidooyin badan ku qaba inuu raashin qashin ah inagu soo daadiyo beerahaas WFP ay cuntada ka soo qaadato waxa ka shaqeeya malaayiin Mareykan iyadoo loogu danaynayo shacabka Mareykanka in loogu abuuro shaqooyin midda kale maraakiibta iyo gaadiidka kale ee qaada cuntada WFP waxa shuruud ah inay noqdaan kuwa laga leeyahay dalka Mareykanka waxa taas dheer Mareykanku inuu sheego inuu Soomaalida ku gargaaro malaayiin dollar taasna waxa qayb weyn ka ah cuntadaas qashinka ah ee la inagu soo daadinayo hay'adda WFP waxay sheegtaa inay qoodiso malaayiin Soomaali ah taasi ma runba anigu markii ugu horeysay ee aan baaritaan ku sameeyay hawlgalka WFP ee Soomaaliya waxay ahayd 2009kii waxaan ku ogaanay baaritaankaas in raashinkii loogu talagalay masaakiinta intiisa badan una gaarin qoliyaha hay'adda laftirkooda laga soo muddo yar kadib warbixin ay UN-ta soo saartay ayaa waxa lagu sheegay in raashinka intiisa badan aan la gaarsiinin dadkii loogu talagalay The UN World Food Programme is investigating the possible theft of food supplies meant for Somalia's famine victims. Fadeexadaha WFP waxay intooda badan qiraan in hay'addu siday wax u sheegto iyo xaqiiqdu ay kala fog yihiin. Waxa kale oo WFP lagu eedeeyaa inay raashinkeeda ku soo beegto xilliga ay beeraha Soomaalidu soo go'ayaan. taasina waxay niyad jab weyn ku keentaa beeralayda Soomaaliyeed. waxaana lagala dagaalamayaa Soomaalida waa wax la yiraahdo economic freedom ama xorriyad dhaqaale inaan helo inta badan waxaad maqli Soomaali dhahaysa beesha caalamka waxaan ku codsanaynaa caalamku hana gargaaro iyo wixii la mid ah waxa nasiib darro ah inaan niyadda ka dhimano oo aan aamino inaan isku filaan karin hadday Soomaali wax soo saarkeeda kobciso waa isku filaani haddaan isku filaano waxaan ka baxaynaa baahida shisheeye haddaan ka baxno baahida shisheeye waan xoroobaynaa inaan waxaan cunayna la soo baxno waa aasaaska xornimada ilaahay wuxuu ina siiyay dhul wax beerida ku haboon raashin dabiici ahna laga soo saari karo wadanka wax soo saarkiisa waa macaan ciidan oo bajaqaysan oo gaduudan cad madow ilaahay inuu dhigay sida daraadeed waxa loo baahan yahay in lala yimaado dadaal kalsooni iyo caqli maamulada ka jira Soomaaliya waxa loo baahan yahay inay ogaadaan dawarsigu dhibka uu leeyahay ayna ku qasbaan hay'adaha shisheeye inay ka iibsadaan raashinka beeralayda Soomaaliyeed ayna keenina waqtiga beeruhu ay soo baxayaan ganacsatada iyo shirkadaha Soomaaliyeedna waxa loo baahan yahay inay yareeyaan raashinka ay dibadda ka keenayaan ayna maalgelin ku sameeyaan sidii ay wax soo saarka dalka u kobcin lahaayeen taasay faa'iido ugu jirtaa iyaga ummaduna horumar ku gaari kartaa